بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. salaadiinta sharafta leh, cuqaashayda, saxaafadda, guddida komishanka qaranka heer gobol iyo heer federaalba, ururka xuquuqda haweenka, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. magacaygu waa Leyla Axmed Ismaaciil. waxaan ku dhashay koonfurta Soomaaliya, wax ku bartay, ka shaqeeyay, deganahay, sidoo kalena aan Somaliland magaalada Hargeysa wax badan ka soo shaqeeyay, hadday tahay civil society-ga iyo dhinaca dawladdaba. mudanayaal, waxaan toos ula hadlayaa salaadiintayda sharafta leh. farxad bay ii tahay aanan koobi karin inaan maanta hortiina imaado, laannu 16kii waxaan awoodi waaya inaan hortiina imaado, sabab kasta ha ka dambaysee. alxamdulilah, ilaaha baa mahad iska leh. salaadiintayda sharafta leh, cuqaashayda aan ku faano, maanta waxaan idin leeyahay codkiina iigu hiiliya, idinkoo ii eegaya experience-gayga iyo inaan sidaan bulshada ugu dhex jiro. kursigani ma noqon doono kursi lumay, ee wuxuu noqon doonaa kursi idinku soo noqday, kursi aad idinku la taliye ka noqotaan, idinku dhex jira, baahiyihiina ka turjuma, hadday tahay waxbarasho iyo hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay shaqo la'aanta baahsana dhallinyarada hayso. salaadiintayda sharafta leh, waxaan si xushmadi ku jirto, ixtiraam leh idiin weydiisanayaa codkiinna inaa maanta iigu heelisaan. aad baan idiin salaamayaa, waan idin jeclahay. guul iyo gobonnimo insha allah biidnillaahi kariim. garabkiinna iyo gaashaankiinnaba waan u baahanahay. berri baa inoo ballanaa hadduu ilaahay yidhaahdo, iyo sidaa inoogu hiilisaan. anigana waxaa ballan igu ah inaanu kursigaasi idinka dhex bixin, ee uu sidii haddaba idinla joogay aan idinla joogi doono ilaahay idamkiisa.